shirweynihii 18aad ee bulshada muslimiinta ah ee dalkan Mareykanka ayaa si weyn loogu qabtay xarunta shirarka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee loo yaqaan Minneapolis Convention Center. Shirweynahani oo ahaa mid sanadlaha ayaa waxaa wadajir u soo qabanqaabiyay ururka bulshada muslimka ah ee Mareykanka ee loo soo gaabiyay MAS iyo sidoo kale markaska Daarul Faaruq ee gobolka Minnesota. Shirweynahani oo sanadkan ciwaan looga dhigay ummad isku xidhan oo mideeyay iimaanka isla markaana ay ka soo qayb galeen dadweyne gaaraya 10,000 oo qof kuwaasoo ka kala yimid gobolada kala duwan ee dalkan Mareykanka iyo sidoo kale wadamada kale ee caalamka ayaa waxaa lagu soo bandhigay muxaadarooyin diini ah iyo cashiro kala duwan oo la xiriira habnololeedka bulshada muslimiinta ka soo qaybgalayaasha shirweynahan 18aad oo u badnaa muslimiinta gobolka Minnesota ayaa isugu jiray dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada kadib markii uu soo ilaaday shirweynahan 18aad ee bulshada muslimiinta ah ee Mareykanka ayaynu wax ka weydiinay qabanqaabiyaasha mu'tamarkan iyo qaar kamid ah culimadii ka soo qayb gashay shirweynahani. mu'tamarkan waxaa qaabinayo oo isku aadinayo ka shaqeynayo waxa waayo masaajidka Daarul Faaruq iyo maxallaha The Muslim American Society MAS labadaas waxa u maxallaha garabka oo ka shaqeysiinaya tan kalena waxa waa masaajidaal badan oo maxallaha iyo Islamic centers iyo organizations badan waxay noo ahaayeen tiirkan ku istaagnayn maanta oo dadkan badan ku imaadeen. Tiirkan waa shir aad u weyn waxa maanta la soo saaray tiradii ugu dambeysay 10,000 oo qof ayaa ka soo qayb gashay. waxaa isla qabanqaabiyay ururka MAS oo ah urur muslimiinta Mareykanka degan gobolka Minnesota sii degan iyo markaska weyn ee Daarul Faaruq marka waa nicmad Ilaahay waxaana laga hadlayay midnimada iyo iimaanka laga hadlayay in muslimiinta lagu mideeyo ficlan waana lagu mideeyo culimadii oo dhan oo kala duwan ayaa isla joogtay aad iyo aad buna barnaamijku u dhacay qurux badan yahay. muhiimadda mu'tamaraadka islaamiga ee lagu qabanayo dalka Mareykanka ay leeyihiin waxa waaye koow dadka waxa laga hadlayaa aqoonadooda diintooda iimaankooda waa koow labo dadka carruurta ee dhalinyarada ah si gooniya waxa laga hadlayaa mashaakilka diiniga ama xagga aqoonada ama xagga akhlaaqiga ee qabsan kara saddex dadka dhan muslimiinta ah waa meel isugu imaanayaan oo hal maalin ay isku wada arkayaan oo salaad wada tukanayaan oo ay dareemayaan يعني مؤتمر إسلامية منطقة إسلامية يعني Islamic environment waxay kaloo ka hadlayaan ishuuyo tiro badan oo dhinaca noqoto siyaasadda dalkan noqoto dhinaca waxbarashada noqoto seminars iyo workshops يعني مؤتمر إسلامي oo sanawi ah dadka muslimiinta wuxuu u kordhinaya oo u faa'iideynaya diintoodii aqoontoodii thaqaafadoodii waaqac ay ku nool yihiin inay wax badan ka fahmaan aad buu muhiim u yahay. waxa mu'tamarkan sanadkan uu kaga duwan yahay sanadadii hore sanadkan waxa aan ku soo darnay luqadaha loo yaqaan Oromada iyo Amxaariga sanadadii hore waxay ahayd Ingiriis iyo Soomaali marka maadaama aan deganahay wadan qurba ah ayaan waxaan ugu talagalnay mu'tamarka noocan oo kala inay carruurteenu u yimaadaan carruuraha kale oo muslimiinta oo aan Soomaalida yimaadaan in uu noqdo meel la isku wada arko shacaa'irta islaamka kor loo wada qaado wax la kala barto la kala faa'iido. shirkan maanta oo ilaa 10,000 ka badan ka soo qayb galeen in qayb kasta oo kamid ah bulshada baahida ka heshay dadka adduunyada ku mashquulsan in shir weyn sanadkii la isugu yimaado oo qayb kasta oo bulshada kamid ah ay ka heshay baahidii kuwii hadda dhashay kuwii 6 sano jiray kuwii ka sii weynaa dhalinyaradii odayaalkii inay cid walbaba ay ka helaan baahidoodii ayaa halka inooga muuqata marka waxaan leenahay waa shir loo baahan yahay xaqiiqatan oo in fara badan in lagu soo celceliyo loo baahan yahay. shirweynahan 18aad ee bulshada muslimiinta ee dalkan Mareykanka ayaa kaalin weyn ka qaadan kara kor u qaadida walaalnimada iyo isku xidhka guud ahaan bulshada muslimka ee dalkan Mareykanka.